waxaa jira maraakiib tiro badan oo badda Soomaaliya sharci darro ugu jirta waxay sameeyaan si aan loo arkin waxay dansadaan qalabka lagula socdo oo AIS-ka uu u bixiyay agaasimaha guud marka ay badda Soomaaliya soo galaan waxaa la daminayaa qalabkaas inta ay sharci darrada kalluumaysiga ku jiraan oo dhan waxaa la wadayaa uu dansanaanayaa mugdi bay ku jirayaan waa la soconaa oo marka ay soo galayeen bilowga la socdaa waxaa lagu ogaan karaa siyaabo kale laakiin dembigu wuxuu ka bilaabmaa in horta la damiyo systemka la damiyo dembigu halkaas ka bilaabmaa haddaanay xabad kalluuna qaadan laakiin markay badda Soomaaliya soo galaan ay dansadaan waa dembiilayaal taas waa taas qodobka kale wuxuu yahay waagii hore waxaa lagu monitor gareyn jiray siyaabo kale oo xog raadin iyo meelo badan baa la soo maray maanta waxaa la marayaa in si systematic ah iyadoo halkan la fadhiyo xaruntan oo Muqdisho ku taala lagala socdo badda cidda ku jirta dhaqdhaqaaqyada jira maraakiibta joogta xaruntan waxaan rabnaa inaan sii ballaarino xarumo kale gobolada ka furno oo ay xaruntan isku xidhan yihiin si mar kasta xogta rasmiga ah ee dhabta ah ee badda Soomaaliya loo ogaado waxaan marka u baahannahay in xaruntan la ballaariyo shaqaalaheeda moor la sii training gareeyo ma aynaan haysan hadda ka hor qalab sidan iyo xarun sidan ah laakiin maanta waa haysanaa arrimahan waxay ka mid yihiin oo runtii dardar geliyay muddana aan soo wadnay xukuumadda cusub ee Rooble ra'iisul wasaare Rooble markay timi waxaa la yidhaahdaa la dardar geliyay hawlihii la hayay shaqooyinkiina la ku amray 100 maalmood in la qabto oo aan dhamaystiray 100 maalmood ku dhamaystiray laakiin maanta aan shaqadeedii rabno in hay'adaha kale ee kuda shaqada leh sida xeer ilaalinta guud oo kale ay nala wadaagaan sida xaruntan u shaqeyso oo wixii fal ka yimaada loola tacaali lahaa bay ka mid tahay waxaan marka intaa ku darayaa yaa badda ku jira baddeena markasta waxaa la yidhahdaa kalluumaysato oo sharci darro baa ku jirta maraakiib tiro badan oo hadda ka horna aan soo report garaynay oo aan waraaqa ka qoray maraakiib ay leeyihiin Iiraaniyiintu maraakiib ay leeyihiin Yamaniyiin haddana maanta aan rabno inaan aan saxeexno maraakiib kale oo dawladda Masar iska leedahay oo tiro badan oo badda Soomaaliya ku jirta oo sawiradeedii aan hayno press release-kiina uu diyaar noo yahay waxaan kaloo ku daba jiraa maraakiib iyagana ay leeyihiin wadamo waaweyn oo ay ka mid tahay India China ka mid yahay Spain ka mid tahay oo iyagana xogtooda rasmiga ah iyo sawiradooda iyo meelaha taagan yihiin markaan helo aan idila wadaagi doono waxaan rabnaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee xeebaha degan iyo cid kasta oo naga taakulayn karta inay arkaan hadda adduunkii horumar badan baa la gaaray waxyaabo badan lagu ilaalinayo sawirada qaar baa dadka xeebaha degan noo soo diraan maraakiib intay sawiraan bay noo soo diraan waa ku mahadsan yihiin inay arrintaas si hoose intay ula socdaan oo baddooda ay ilaashadaan iyagaa baddooda leh carruurtaada ku anfacaysa iyagaan ku anfacaya inay nala soo wadaagaan waxaan kale oo rabaa inaan kelmad ka idhaahdo oo aan u hambalyeynayaa mashruucan Yurubiyaanka maraakiibta Yurubiyaanka oo badda Soomaaliya jooga biyaha Soomaaliya oo u jooga inay la dagaalamaan burcadbadeedka runtii waa ugu hambalyeynayaa in burcadbadeedkii dhammaatay laakiin waxaan kaloo dhinaca kale ka xumahay in burcadii kalluumaysiga aanay waardiye ka haynin oo maraakiib sharci darro ku kalluumaysanaysa ay taagan yihiin agagaarkooda iyagoo maraakiib waaweyn ah oo loogu talagalay inay burcadbadeed la dagaalamaan inaanay sharci darrada kalluumaysiga la dagaalamin oo xitaa aanu ka kari weynay reportingka iyo sawirada aad heshaan noo soo gudbiya waxaan rajaynayaa inay bedelaan dhaqankaas oo ay ku darsadaan mandate-kooda horena dhowr jeer waa u weydiisanay in mandate-ka la bedelo oo lagu daro in si aanay burcadbadeedku u soo noqonin burcadbadeedka waxaa furo u ah oo markii horena ay ku bilaabantay haddana haddii la sii wado sharci darrada kalluumaysiga oo weliba wadamada waaweyn oo haddeer aan soo tirinay ay burcadbadeed kalluumaysiga sharci darrada sii wadaan inay burcadbadeedii soo noqonayso dadkuna waxaad moodaa inay xaq u yeelanayaan haddii kalluunkooda laga boobo inay iyaguna de maraakiibta boobaan annaga ma encourage garaynayno laakiin meesha ay wax u socdaan waa saas marka iyagana waxaan ku soo celcelinayaa in ay nagala shaqeeyaan maraakiibta hareere taagtaagan oo aanay warbixintooda na soo siinayn oo aanay tallaabooyin ka qaadayn arrintaasuna nasiib darro weyn weeye
waxaan warkayga kusoo koobayaa shaqadan shaqo bilaabantay weeye horumar fiican baa laga gaari doonaa waa sii weynaynaynaa waa sii wadaynaa wixii aan awoodno oo aan tamarteennuna gaadhsiiso waxaan ka wada shaqayn doonaa annaga iyo xafiiska xeer ilaalinta in aan ku dembiyadaas ku qaadno Soomaaliya wixii aan Soomaaliya ku qaban weynaan xeer ilaaliyuhu wuxuu awood u leeyahay meeshii la tagaba inuu uga daba tagi karo marka waa mahadsantihiin soo dhawaada shaqo fiican baa noo bilaabantay shaqadan waa sii xoojinaynaa xeer ilaaliyaadna waa mahadsantahay